gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa ka qayb galay kulan ay yeesheen guddiga dib u eegista la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka, waxaana kulanka shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka. gudoomiyaasha labada aqal ayaa labada guddi uga mahadceliyay hawsha adag ee hayaan iyo sida ay uga go-an tahay in dastuurka dalka la ansixiyo bisha Juun ee sanadkan. labada guddi ayaa guddoonka baarlamaanka uga warbixiyay hawsha dib u eegista dastuurka halka ay marayso, waxaana ay guddoonka labadiisa aqal ku wareejiyeen qormada labaad ee dastuurka sida gabagabada kulanka kadib uu warbaahinta qaranka u sheegay xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux. waxay soo bandhigeen oo ay ku wareejiyeen labada guddoomiye mid walba nuqul ah qormada labaad ama daraafka labaad ee dastuurka oo dhammaystiran ayay ku wareejiyeen. marka wixii hadda ka dambeeya waxa ugu horeeya hadda ay markaa ka codsadeen in guddoomiyaashu ay hirgeliyaan ansixinta qaraarka ansixinta dastuurka. kaa macnihiisu waxa weeye dastuurka marka uu baarlamaanku ansixinayo procedureka ama qaabka uu u marayo ayaa loo baahan yahay horta qaraarka in labada gol ansixiyaan. waa la akhriyey oo golaha waa laga hor akhriyay, waa laga hadlay. hadda in shir loo qabto mar labaad labada aqal oo wada fadhiya si loo ansixiyo, waayo kaasi wuxuu faa'iidada uu leeyahay ama muhiimadda uu leeyahay waxa weeye haddaan kaa la ansixin hirgelintii in baarlamaankii ka doodo cutubyadii uu ka koobnaa nuqulka labaad ama ka finalka la keenayo suuragal ma noqonayso, sababtoo wax kasta wuxuu u baahan yahay inuu qaab la isku ogyahay oo loo ansixinayo uu jiro. marka kaa waxay codsadeen inta aanan la xidhin kalfadhigan in la ansixiyo. xogaa dhibaatooyin jira ayay aada uga cabanayeen oo ah xagga dhaqaalaha ama miisaaniyadda oo ay u baahan yihiin waqtigii loogu talagalay inay helaan, inta u qoondaysan waqtigii loogu talagalay ay helaan, hadday tahay guddiga la socodka iyo hadday tahay guddiga madaxa bannaan. Ibraahim Gudle Isxaaq, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.